bishii Oktoobar 1973 dowladaha Carabta ayaa cunaqabatayn dhanka shidaalka ah saaray dowladaha reer galbeedka iyagoo xilligaasi ku eedeynayay in ay taageereen Israa'iil kadib dagaalkii 17kii Ramadaan ee dhexmaray Carabta iyo Israa'iil. cunaqabatayntu waxay keentay in qiimaha shidaalku hal habeen sare u kaco in ka sarreysa 100%. Venezuela waxaa habeenkaasi roobka u soo gaadhay balaayiin dollar oo lacag cadaan ah. caalamkuna waxa uu xilligaasi u bixiyay Venezuela Saudi Venezuela sababtoo ah waxa buuxsamay akoonnadii dowladda, waxaana xilligaasi la waayay meel lacagta la kala dhigo si loo maareeyo. dowladdii madaxweyne Carlos Andrés Pérez waxay go'aansatay inay la wareegto shidaalka dalka oo dhan, waxaana la aasaasay shirkadda shidaalka dowladda ee PDVSA. barwaaqada la gaadhay iyo lacagta tirabeelka ah kasakow, arrintani waxay sababtay in Venezuela ay isku dhiibto shidaalka oo ay si 100% ku tiirsanaato. Jimcihii Madooba wixii ka horreeyay bishii Febraayo 18 1983 dadka reer Venezuela waxa ay ku jireen barwaaqo aanay haysanin. muwaadiniinta kale ee reer Latin America waxay fasaxa dalxiis ku tagi jireen xeebaha Miami ee dalka Mareykanka. sidoo kale waxaa caan ka ahayd kelmadda Tamarato Damidos, taasi oo macnaheedu yahay waa raqiise 2 xabo iga sii, oo ka dhigan in wax kasta ay ka iibsan jireen dadka reer Venezuela 2 shay marka ay arkaan inay jaban yihiin oo ay iibsan karaan. xilligii barwaaqada waxay Venezuela qaadatay deyntii ugu badnayd, waxaanay deyntaasi ku dhistay mashaariic waaweyn oo balaayiin dollar ah. balse dhibaatada bilowgeedii waxaa hoos u dhacay qiimihii shidaalka ee adduunka. 1980 shirkadaha reer galbeedku waxay bilaabeen inay shidaal ka soo saaraan meelo cusub sida badda waqooyi iyo Alaska. waxay sidoo kale wadamada warshadaha leh ay yareeyeen isticmaalka shidaalka, taasi oo keentay inuu hoos u dhaco qiimihii shidaalku. arrintaasina waxay hoos u dhigtay dakhliga Venezuela. markii la arkay inuu dhaqaalaha Venezuela uu hoos u socdo, dowladaha waxa laga dalbaday inay bixiso deymihii ay qaadatay xilligii barwaaqada, kuwaasi oo ay ka qaadatay inta badan hay'adaha caalamiga sida Baanka Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka ee IMF. balse xilligan dalku ma haysan lacag ku filan oo uu ku bixiyo deymahaasi. markii ay dowladda Venezuela isku dayday inay deynta bixiso, waxaa khasab noqotay in deynta lagu bixiyo dollarka Mareykanka, taasi oo yaraysay kaydkii dollarka ee ay dowladdu haysatay. sidoo kale muwaadiniinta qaniga ah iyo madaxda shirkadaha oo dareemay khatarta dhaqaalaha ee dalku ku jiro ayaa iyaguna lacagtoodii balfarka ee Venezuela u beddeshay dollarka Mareykanka. taasina waxay keentay in dollarkiiba la waayo, waxaana qiimo dhacday lacagtii dalka. xilligaasi wixii ka horreeyay, dowladda ayaa go'aamin jirtay sarifka, waxaana halka dollar ee Mareykanka ah lagu sarrifi jiray 4.50 senti oo lacagta bilfarka ah. dalkuna waxa uu ku jiray xasilooni dhaqaale. laakiin markii dollarkii yaraaday, dowladdu waxay ogaatay inaanay sii xakamayn karin qiimaha sarifka. 18 Febraayo 1983 madaxweynihii xilligaasi Luis Harere waxa uu ku dhawaaqay in la joojiyay nidaamkii ay muwaadiniintu lacagta ku sarrifan jireen ee ahaa qiimaha go'an ee ay dowladdu jarto, waxaana uu shaaciyay in loo wareegay nidaamka qiimaha sarifka kala duwan, taasi oo ka dhigan in shirkadaha cuntada iyo daawada oo keliya ay dowladdu siin doonto sarifka lacagta jaban, halka dadka caadiga ah iyo shirkadaha kale ay ka sarrifan doonaan suuqa xorta ah, kaasi oo dollarku aad uga qaalisanaa lacagta Venezuela. tanina waxay ka dhigan tahay in shirkadaha caadiga ahi halka shay ee ay ku soo iibsadaan $10 ay shirkadaha cuntada iyo daawadu ku soo iibsan karaan 10 shay. halkanina waxaa ka bilaabantay masiibada. muwaadiniintii dalxiiska u tagi jiray adduunka waxay ogaadeen in lacagtoodii dhowr saacadood gudahood ay ku baaba'day. mushaharkii uu qofku qaadan jiray waxa uu ahaa sidiisii oo ma kordhin, halka alaabta suuqa taala qiimaheedu uu sare u kacayay saacad kasta. muwaadinkii mushaharkiisu u goyn jiray tigidhada diyaaradaha dalxiiska iyo gawaarida qaaliga ah
waxa uu iibsan kari waayey xilligan baahiyaadkiisii aasaasiga ahaa sida cuntadii iyo dharkii. inkastoo tiro ahaan aanu mushaharkiisu isbedelin, laakiin waxa uu lumiyey qiimihii uu lahaan jiray. waxaana xilligaasi caan baxay halkudhigga The Starving Billionaire ama bilyaneerka gaajaysan. qiimihii lacagta Venezuelana waxa uu gaadhay heer lacagta aan la tirin ee la miisaamo. tusaale ahaan, haddii aad cabto hal koob oo kafee ah, qiimihiisu wuxuu ahaa 1 bilyan oo bilfarka Venezuela ah, taasi oo aanay cidina tirin karin. beddelkeedana waxaa la doorbiday in lagu miisaamo kafadaha lagu miisaamo badeecooyinka. qiimaha badeecadaha ayaa saacad kasta iyo daqiiqad kasta sare u kacayay. sidaas darteed, marka aad dalbato koob kafee ah, marka hore lacagta ayaa lagaa miisaamayaa si aanay kuugu kordhin qiimo. inta aad cabbayso kafeega ay aad miiska fadhido. qiimo beelka ku dhacay lacagtii awoodda lahayd ee Venezuela waxa uu noqday mid xadka ka baxay, heer ay dadku aamineen inay lacagta ku iibsadaan dhuxusha ay wax ku korsadaan inay ka jaban tahay qiimo ahaan in lacagta lafteeda ay shitaan oo ay dhuxul ahaan u isticmaalaan. waxaana gebi ahaanba dumay dhaqaalihii dalka. dadkii qaniga ahaa ee reer Venezuelana waxay sannado gudahood ku noqdeen wax ma haysato sabool ah. qiimihii shidaalka ee dalka dhexdiisu waxa uu noqday mid aad u jaban, heer aad gaadhiga V8-ka ah taangigiisa shidaalka aad ku buuxsan karto lacag ka yar $1. Venezuela maanta iyo shalay. intii u dhaxaysay 1950 ilaa 1970, dhaqaalaha guud ee dalku waxa uu kordhay in ka badan 1,000 jeer. laakiin intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2021, Venezuela waxaa lumay oo dubay 80% dhaqaalihii dalka. xilligii barwaaqada, muwaadiniinta dabaqada dhexe waxay iibsan karayeen guryo, baabuur iyo hanti kale, waxaanay u safri jireen dalalka caalamka. balse maanta ma awoodaan baahiyaadkooda aasaasiga ah ee ay ku nool yihiin. aan dib ugu noqonno goobtii dhashay barwaaqada ee Maracaibo iyo sida ay maanta tahay. Maracaibo waxay ahayd magaaladii ugu horreysay ee Venezuela, taasi oo laga hirgeliyey adeegga korontada. waxaana xilligaasi korontada la geliyey guri kasta, kaasi oo ay adeegga korontada heli jireen dadka Maracaibo 24 saacadood. guri kastana waxaa ku jiray qaboojiyayaasha elektaroonikada ah, maadaama ay magaaladu ku taallo xeeb aad u kulul. maanta dhibaatada ugu weyn ee magaalada haysataa waa koronto la'aan, waxaanay korontadu ka maqnaataa 12 saacadood maalin kasta. waxaanay tani ka dhigan tahay inay magaaladani isku beddeshay meel aan lagu noolaan karin. haradii iyo gacankii barwaaqada ee Maracaibo iyo biyihii laga soo saari jiray kalluunka iyo malaayiinka foosto ee shidaalka ah, qaybtana ka ahaa quruxda gobolka ee loo iman jiray dalxiiska, maanta waxa ay isku beddeshay sun madow oo fadhida. waxaanay la dhibaataysan tahay shidaalka ku daadanaya maalin kasta. dowladduna uma haysto lacag ay ku dayactirto kumanaanka dhuumood ee daxalaystay ee ku dhex jira biyaha. waana meesha maanta dunida oo dhan uu ku daato shidaalka ugu badan. dhammaan noloshii halkan ka jirtay waa ay baaba'day. kalluunkii, dhirtii iyo dadkii beeraley kalluumaysatada ahaaba. waxaana xilligan dadkii halkan deganaa qaxooti ku yihiin xuduudaha dalkii qaxootiga ahaan jiray ee Colombia. barnaamijkeena maanta halkan ayuu ku dhan yahay, inkastoo aan halkan sii joogi doono inagoo eegi doona waxyaabaha sababay in dalkii ugu taajirsanaa adduunku uu noqdo kan ugu faqiirsan maanta. inta ka horeysa barnaamijkeena barnaamijka xiga. salaamullaahi calaykum.